taliska qaybta 18aad howlgalka AMISOM ee Soomaaliya oo qaybaha kala duwan ee warbaahinta gudaha iyo dibadda la hadasha geeyay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose oo qiyaastii 30 kiiloomitir koonfur bari ka xigta caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay AMISOM sharaxaad ka bixisay weerarkii qaraxa loo adeegsaday oo toddobaadkii hore al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga degmada Afgooye taliyaha qaybta 18aad howlgalka AMISOM ee fadhigiisu yahay deegaanka Carbiska Colonel Ronaldo Bikiro ayaa sheegay in qaraxa saldhigga degmada Afgooye al-shabaab ay ku weerareen talaadadii hore ay ku dhinteen 6 askari oo ka tirsan booliiska Soomaaliya wiil yar oo 7 sano jir ah iyo 2 gabdhood waxaana Colonel Bikiro oo hoosta ka xariiqay in iminka ay gacanta ku hayaan Afgooye iyo nawaaxigeeda taliska ciidanka AMISOM gaar ahaan qaybta 18aad isagoona sheegay in qaraxa al-shabaab ay ka soo abaabuleen magaalada wax soo saarka ku cambaxday ee Mareere. The vehicle came from direction of Mareere, loaded with explosives and attacked the police station. Exploded on the police station. Now, that was fine according to Al-Shabaab because of that was the best they could do. After explosion, some 4 officers, 6 officers, police officers were killed. And then there was a young boy, I think a son of a policeman, around 7 years, very friendly to me in particular, because I used to interact with him and he was a friend of mine. And then there were 2 civilian women who were working there as cooks. halkan waa saldhigga dhexe ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka dhacay qarax weyn oo saameyn ku yeeshay dhammaan dhismayaasha saldhiggan waxaana burburay qaybaha kala duwan oo ka koobnaa saldhigga booliiska ee degmada Afgooye toddobaadkii hore ayaana al-shabaab ay ku soo weerareen qarax weyn oo loo adeegsaday baabuur lagu soo rakibay oo darbi ka mid ah halkan saldhigga dhexe ee degmada booliiska Afgooye lagu weeraray taliyaha booliiska howlgallada gobolka Shabeellada Hoose oo dhankiisa warbaahinta kula hadlay saldhigga booliiska oo aad u burbursanaa ayaa waxa uu ka sheekeeyay qasaarihii ka dhashay qaraxii talaadadii hore xarakada al-shabaab ay ku weerareen saldhigga booliiska degmada Afgooye waxay ahayd dhacdo ku saabsan qaraxuna meel kasta oo ka dhaca dunyada meel kasta oo ka dhaca magaalo kasta oo ka dhaca qaraxaasna waxa ku dhintay dad rayadana waa ku dhinteen rag ciidanana waa ku dhinteen marka waxa ilaahay mahadiisa waxay sheegeen shabaab inay Afgooye qabsadeen inay meelo badan ka qabsadeen dagaalna kama dhicin weerarna kama dhicin Afgooye magaalada daafaheeda markii qaraxu dhacay xabada ka soo rideen si qalqal ay ugu furaan ummadda shacabka iyo dadka shacabka ah oo degan Afgooye haddana waa degan tahay magaalada waana xasilan tahay ammaankuna waa sugan yahay dhibaato kale oo ka jirtaana lama arko Cabdi Casiis Ibrahim Axmed Okay TV-ga Universal magaalada Muqdisho